odayadeena maadaama maanta ay halkan taagan yihiin ay yihiin dadka laga karaameystana ay yihiin reer Sheekh Muumin hadaa maqasho Sheekh Muumino waa oday la siyaarto oo laga karaamaysto maanta waxaan rabnaa inay u duceeyaan dawladda inay u duceeyaan qarannimada inay u duceeyaan midnimada ummadda Soomaaliyeed degmooyinka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho isbuucii labaad waxa ka socda diiwaangelinta dadka qaadanaya kaararka codbixinta ee ay ku dooranayaan golaha deegaanka ee magaalada Muqdisho halkan aynu ku sugannahay waa degmada Xamarweyn oo iyadana ay ka socoto diiwaangelinta maalintii labaad shacabka ayaa safaf dheer ugu jira waxaana aad loo adkeeyay amniga degmada halkan oo aynu ku sugannahay xarunta guddiga doorashooyinka oo aastayeen doorashada iyo diiwaangelinta dadweynaha degmada Xamarweyn ayaa waxa ka socota shaqo aad u ballaaran dadka ayaan u diyaarsan inay qaataan kaararka isla markaana isdiiwaangeliyaan sida idin muuqata waxa gadaasheeda leeman iyo sidoo kale safaf dheer loogu jira dadka oo sugaya faylka isla markaana doonaya inay kaararka qaataan kuwa waxaynu la hadalay sidoo kale kaararka soo qaatay iyo kuwa intaba doonaya inay qaataan kaarka maanta odayadeena inay taagan yihiin waa Ilaah xamdigiis annaga reer Banaadir aan lahaa reer Banaadir waxaan jecelnahay midnimada dawladnimada iyo qarannimada taasaan ku soo naaloonay SYL waxa keenay waa reer Banaadir tiya wali la aysan yahay waxa odayadeena 90 jirayaasha maanta ay banaanka u taagan yihiin waxa waaye inay wax doortaan ayagana la doorto ay u taagan yihiin marka waxaan rabnaa odayadeena maadaama maanta ay halkan taagan yihiin ay yihiin dadka laga karaameystana ay yihiin reer Sheekh Muumin hadaa maqasho Sheekh Muumino waa oday la siyaarto oo laga karaamaysto maanta waxaan rabnaa inay u duceeyaan dawladda inay u duceeyaan qarannimada inay u duceeyaan midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo doorashadan loo taagan yahay oo juhdiga badan madaxweynaha dal xureeye Xasan Sheekh Maxamuud uu go'aankiisa tahay in ummadda niyadooda siday tahay ee uu rimowdo ay tahay because doorashada qof iyo codka waa riyo ummadda shacabka Soomaaliyeed ku faraxsanahay sababtoo waligiis kaar waa la qaadan jiray waa wax arin aad u jiri waay intiqaabaadka ay dhahaan waligiis waa jira yeemana laga qaata meel kasta laga qaata cod bixintii way marka wax cusub ma aha caalamka dhan waa ka jira marka qofka codkiisa inuu dhibtan xur uu noqdo waa arin aad u wanaagsan hada shakhsiyan hore u qaadat maanta kana mayo waa anaga waa gacanta waxna loo marmarin jiray waana waxa ma arkin kaar ma arkin waxba gacanta loo marin jiray boodsiyoosina aad qayb gashan aan leeyahay ma kaarka hadda ugu horeeya biskaaran qaadano akaar ma qaadan waligii ma qaadan hadda ay wareen maanta sida warta inaad kaar qaato oo bari qofka adiga adeynsa wallahi arin aad u wanaagsan waayo yaani waxaan sugeynay kamid tahay oo qofka yaani codkiisa dhiiban karo asagoo faraxsan codkiisa dhiiban karo oo ma sha Allah waxaad u wanaagsan waayo ma sha Allah halkan waxaynu kula kulannay odayaal 90 jir ah oo asal u ah degmada Xamarweyn gobolka Banaadir ama dadka reer Banaadirga waxaynu kala sheekaysanay dareenkooda maanta inay halkan yimaadaan isla markaana ay qaataan kaararka codbixinta doorashooyinka ay ka qayb galeen iyo taariikh ahaan dalka Soomaaliya waxayna sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin in maanta iyagoo 90 jir ah ay soo kacaan isla markaana ay yimaadaan xarunta diiwaangelinta kaararkana lagu qaadanayo isla markaana ay codeeyaan waa loo baahan yahay saas waxa mid walba oo saan oo yeelay waa loo baahan yahay insha Allah dawladana saasay ku maasantaa insha Allah ina dhamaanteen ina wax nidaam oo naqdo kulligaan oo faraxsanahay aad iyo aadan oo faraxsanahay hadii Ilaahay yira insha Allah unkan dadkii waxaan nahay deegaanka nahay hadii Ilaahay asira waxaan jecelnahay meeshan inaas oo Ilaahay nidaam inaas oo dhamay insha Allah ta'ala idinkan ina oo saliim naqatin insha Allah waayahay waxa tahay dadkii oo hore marka balka waran doorasho noocan ma ka qayb gashay doorasho markii waxaan ka qayb galay Aadan Cabdul Cusmaan iyaan ka qayb galay taas waa ka qayb galay ya faafaahin naga sii sida ahayd taas waxay ahayd taas saan oo kale ma ahayn oo kale waxaas ahay magaca lagu wadinay qabiil ma lagu wadinay waxa waas faraha marka gacanta laga xariiqi jiray taas boodkaas ay taas boodar dhigi taas taas waa qayb galnay degmada waa la shaqeynay al'aanana waa la shaqeeyo hayna odayaashii xamar anahay afarta xamar waan isku xiranay waxaan jecelnahay midnimada reer Banaadir iyo dawladda Soomaali ina midna dawladda waa ay sanay daa'ima reer xamar waa ay siin waxaan leeyahay walaalnimada wax ka weyn la waayay يقوى مصرنا ناهي إنا من دهانو ولا لهانا اسكو حرنانا جعلنا انتان سنو
كهرباء كقاد طلياني كقاد صوماليا ودي حدنا وحربنا أنا دولة عادة صوبنا إلى دوكر النخل هري دورشة ما وقف قشي سنة آخرة ما خنت السنة اللي جوا دورشة دي بركة لدي ساي تستورك هو دي ساي قبيو وحد ساي شبرول قال كليرا دسين وأنا ولا كان تستورك وآخرني وأيدني هذا التطور هذا اللي كان وأيدنا حسن على دمدرن تي في degmada xamrweyne gobolka banaadir adeega dhamays plus waliba waa adeeg shalgoon lahayna oo kiin fududaya in la xiriirto adduunka oo dhan xirmada maalinle ee adeega dhamays plus ka shaway 30 city waana ka isticmaal internet iyo ku hadal 24 saac oo xiriir waliba kiindara nashaad IPTV oo isku xiraha madadaalada casriga ee ka shaway dahab adoo garaacasa xiddig boqolikow afargees adeega dhamays plus xulashadan ka haboon ee geek somtal waliba waa shabakad isgaarsiineed iyo tiknoolajiyadeed ee aan ka balaaran geeyigan